Allah wuxuu addoommadiisa ku galabaystay inuu u yeelay xilliyo ay ku gutaan daacooyinkiisa, xilliyada oo ku badsanayaan camalka wanaagsan kuna tartamayaan wax walba wanaagsan oo Allah u dhaweynaya. Liibaan iyo farxad oo dhanna waxay u sugnaatay qofkii ka faa'iideysta fursadahani dahabiga, waxaana ka mid ah xilliyadani fadliga badan. waa maalmo uu rasuulka nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu ku sheegay inay tahay maalmaha ugu fadli badan adduunyada, naguna booriyay in aan camalka wanaagsan badan. waana maalmo uu Allah subxaanahu wa tacaala ku dhaartay, taana ay weyneyn iyo fadli ugu filan tahay. Allah jalla jalaaluhu kuma dhaarto wax weyn mooye, waxaana aad loogu baahan yahay addoonka muslimka inuu maalmahani ka faa'iideysto, dadaal badanna uu la yimaado, sidoo kale badiyo acmaasha wanaagsan si fiicanna uu u soo dhaweeyo maalmahani kana faa'iideysto. Videogani waxaan ku caddeyn doonaa waxyaabaha wanaagsan ee qofka muslimka kaga faa'iideysan karo maalmahani barakeysan iyo sidoo kale fadligooda. Allah ayaa ku dhaartay, taasna waxay ku tusin fadliga ay maalmahani leeyihiin. Alla weynayna kuma dhaarto ilaa wax weyn mooye. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. sidoo kale waa maalmaha la tilmaamay oo Allah u jideeyay in xuskiisa la badiyo. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. sidoo kale rasuulka nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee wuxuu cadeeyay in maalmahani ay yihiin kuwa ugu fadli badan sanadkan. Jaabir Allah ka raali noqday waxaa laga wariyay in nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri, maalmaha adduunyada ugu fadli badan waa maalmaha 10ka ah oo ah kuwa Dhul-Hijja. waxaa marka lagu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam, ma waxay ka khayr badan yihiin maalmo inta la eg oo 10 ah oo la jihaado? kadib ayuu nabiga ku jawaabay, way ka khayr badan yihiin ilaa qofku shahiiday mooye. sidoo kale waxaa ka mid ah maalmahani maalinta Carafa oo ah sidoo kale maalinta xajka weyn iyo maalinta midhaaf ahna maalin la iska xoreynayo naarta. sidoo kale waxaa ka mid ah maalinta gowraca, waana maalmaha ugu fadli badan sunnada gowraca sida ay culimada isku raaceen. waxaa sidoo kale ku kulmay cibaadooyinka kuwa ugu waaweyn ama hooyooyinka cibaadada. wuxuu ku sheegay xaafid ibn xajar kitaabkiisa al-Fath, waxaa muujinaya 10ka maalin ee Dhul-Hijja inay yihiin maalmo gaar ah. waxay kulminayaan hooyooyinka cibaadada sida salaada, soonka iyo sadaqada iyo xajka, iyadoo aysan jirin maalmo sidoo kale ah. acmaasha ugu wanaagsan oo qofka muslimka lagu baahan yahay inuu sameeyo maalmahani waxaa ka mid ah inuu guto xajka iyo cumrada. waa wax ugu wanaagsan ee la sameeyo 10ka maalin. qofka uu Allah u fududeeyo inuu booqdo gurigiisa una guto xajka iyo cumrada sida loo baahnaa, abaalmarintiisuna waa janno. taa waxaa daliil u ah hadalka nabiga nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ee ahaa, cumrada iyo cumrada kale inta u dhaxaysa waa dambi dhaaf, xajka loo baarinimo falayna abaalmarintiisu waa janno. in sidoo kale maalmahani barakeysan aan kaga faa'iideysano soom oo soo galaya waxyaabaha ugu wanaagsan misna ugu fadli badan. sidoo kale rasuulka nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee wuxuu si gaar ah nagula dardaarmay in maalinta 9aad ee Carafo aynu soomno. wuxuuna yiri, soonka maalinta Carafo waxaan Allah kaga malayn inuu ugu dambi dhaafo sanadka hore iyo kan dambe. waxaa wariyay Muslim. inaynu badino salaada waana acmaasha kuwa ugu weyn uguna fadli badan. sidaa darteed qofka muslimka waxaa ku waajib ah inuu ku ilaaliyo salaada waqtigeeda, sidoo kale uu ku dukado jamaaco, sidoo kalena waa inuu badiyo tukashada salaadaha sunnada ah. wuxuu yiri rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee isaga oo kasoo warinaya Alle, kama zuulaya addoonkayga inuu igu soo dhawaanayo dukashada salaadaha sunnooyinka ilaa aan ka jeclaado. waxaa wariyay Bukhari. inaynu badino takbiirta iyo taxmiidka iyo tahliilka iyo dhikriga Allah. ibn Umar isaga iyo Abi Allah ka wada raali noqday ayaa wuxuu ka wariyay rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee inuu yiri,
inaysan jirin maalmo Allah xaggiisa kaga weyn kagana jecel badan yahay in la sameeyo camalka wanaagsan 10 maalin ee badiya tahliilka iyo takbiirta iyo taxmiidka waxa wariyay Ahmed waxaana la jeclaystaa in qofka muslimka uu kor u qaado maalmahani takbiirta sidoo kale sadaqada waxyaaba ugu wanaagsan ee qofka muslimka loogu baahan yahay in maalmahani uu sameeyo Allah oo sadaqada adoomadiisa farayo wuxuu kitaabkiisa ku dhahay yaa ayyuhalladhiina aamanuu anfiquu mimma razaqnaakum min qabli an ya'tiya yawmun laa bay'un fiihi walaa khullatun walaa shafaa'ah والكافرون هم الظالمون sidoo kale waxaa jiro acmaal kale oo wanaagsan oo loo baahan yahay qofka muslimka in uu sameeyo sida inuu quraanka akhriyo sidoo kale barto inuu badiyo istighfaarta inuu u baarinimo falo waalidiinta inuu xiriiriyo rixamka iyo qaraabada inuu salaanta faafiyo quudinta masaakiinta heshiiska dadka khilaafka ama dagaalka uu ka dhaxeeyo wanaag farista iyo xumaan reebista xifdinta carabka iyo farjiga u ihsaan falka dariska karaameynta martida Allah dartiisa oo wax loo baxsado zawjada ciyaalka oo wax lagu bixiyo wadada oo laga qaado wax dadka dib u keenayo kafaalo qaadista agoonta bukaanka oo la booqdo وسلمت رسولك نبتقلين حديث كركي ساعاتي مسلمين تا أو عن لدبين حريرين والدين تصاحب بضوضة ودعين تا والله مسلمين تا قدشة أمانة إيا بلن أوفين تا وباري نقشة ابتياش إيا حبر يالك إنها أولاقا خبصة وحو البحارانة مساجدك أولا هذا إيا صلاة أولو قدتو كدو جماعة حسك الله حيلي كستا فرحات قلين تا مسلمين تا قد داليستا توكشة صلاة صنة ونحريشة زدك تاك تدرن wanaag walba oo la sameeyo iyo khayrka oo loo tartamo qalbiga oo la nadiifiyo lagana saar wax walba cuqdad iyo dagaal ah muslimiinta oo aan kala qayb qaadano wax walba oo khayrka ku jira hadaba aynu degdegno inaan ka faa'iideysano maalmahan qiimaha badan iyo si dhidhiil aan ugu dhaafin si aynu ugu shalaanin maalin shalaytada aysan waxba noo tareenin